السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحابي مالكستود نقداونيسان جمعة وناكسن تاريخ ضوا سديدة بشمي سنة كالبكوني اللحية لباتن وبرنامجكي وقهريي وبرنامجكي كوباد آنو ماتا أو جمعة ديسو قد برينو haddaba qodobada barnaamijka gabi ahaantii waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu waaweynaa ee ku soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe. haddaba warbixinada barnaamijka aanu ku soo gudbinayno waxaa ka mid ah weeraradii xalay ka dhacay marinbiyoodka Hormuz, khasaaraha ka dhashay yaa bilaabay dagaal socday muddo ku dhow 45 daqiiqadood oo aan waxba la isu reeban oo dhex maray Mareykanka iyo Iiraan. kadib yaa kala joojiyo soo kala dhex galay yaa ka cararay goobtiisa. Israa'iil se ma ku lug lahayd khasaaraha ilaa haddeer warbaahintu ay ka hadlayaan yuu soo gaaray khasaaraha ugu weyn. haddaba tafaasiil dhammaystiran oo xalay ilaa saakay ilaa xilligan sheekadaas warbaahintu ay ururinayeen wararkii ugu dambeeyay xalay wixii ka dhacay Hormuz ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. dhanka kale Iiraan oo uga digtay Israa'iil inay isku daydo weeraro gaadma inay ku soo qaado, waxaana ay sheegeen Iiraaniyiintu in doqonnimada Israa'iil ay garanayaan inay weerar gaadma isku dayi doonto, laakiin waxay sheegeen in gantaalaha Iiraan ay ku fooraraan Israa'iil goobo muhiima oo ka mid ah iyo weliba saldhigyada Mareykanka ee gobolka. haddaba xaaladda gobolka ayaa mar kaliya isku bedeshay colaad iyadoo la sugayay in warbixin ay ka timaado go'aanka Iiraan kadibna heshiiska la wada gaaro. haddaba akhbaaraadkaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta Jimcaha idinkugu soo gudbin doonaa wixii ay warbaahintu ka yiraahdeen. inta aan ku jirno akhbaar iyo warar wixii cusub oo soo dhaca waanu idin la socodsiin. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood nagala socotaan, ku soo dhowaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadaan idinkugu talagalnay maanta oo jimca mubaarak ayaan idin leenahay. asxaabay taariikhdu maanta waa 8 May 2026. barnaamijkeena waxaynu gabi ahaantii ku faahfaahin doonaa warar waaweyn oo dhacay xalay oo ku saabsan dagaal dhex maray toosa Mareykanka iyo Iiraan. haddaba warbixinadii ugu dambeeyay sheekooyinkaas oo ilaa hadda warbaahintu ay ururinayaan sida ay wax u dhaceen ayaynu barnaamijka kaga hadlaynaa. haddaba marka ugu horeysa waxaynu ku bilaabaynaa warbixin faahfaahsan oo dhan walba ku saabsan oo warbixin uu aruuriyay telefishinka Al Jazeera wixii xalay dhacay ayaynu ku bilaabaynaa. haddaba Al Jazeera waxay leedahay yaa bilaabay dagaalka. labada dhinac Mareykanka iyo Iiraan sheegashooyinkooda maxay kala yihiin, sidii uu u dhacay oo dhammaystiran ishtibaaga ama dagaalka ka dhacay meesha la yiraahdo marinbiyoodka Hormuz. marka meeshan waxaa leeyahay xalay wixii dhacay marka hore waxaa laga bilaabayaa sidee wax u dhaceen, yaa bilaabay dagaalka, man bada al-hujuum. laba riwaayadooda jirta marka laba sheeko Mareykanka uu wado iyo sheeko Iiraan ay wado. marka waxaa leeyahay labada sheeko wax isku dhow xataa maaha. qoladan markay ka sheekeynayaan waa la soo aruuriyay, qoladan markay ka sheekeynayaan sidii ay xalay wax u dhaceen waa la soo aruuriyay. marka la isku keenay wax isku dhow xataa maaha. yaa been sheegaa marka u tagi doonaa waxaasoo dhan taqriirka ku qoray. marka waxaa la yidhi waxaa lagu hormaray riwaayada ama sheekada ay arrinkaas sheegeen Iiraan waxay tiri dagaalka waxaa bilaabay Mareykan. siduu ku bilaabay riwaayada oo dhanka Iiraan ee sheekadan ku saabsan waxay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay leeyihiin laba markab mid shidaal wada iyo mid
markab caadi ah oo ku dhowaa dhanka Fujairah imaaraadka oo Hormuz dhinaceeda saaran oo Iiraan ay leedahay ayay weerareen 3 mudamiraad ama 3 markab oo kuwa dagaalka ah oo gantaalo ku hubaysan waxay rabeen inay qabsadaan waa sheekada dhanka Iiraan ka bilaabayna oo fiirsada sida Al Jazeera ay u kala habaysay waay marka maxaa dhacay marka waxay caawimaad weydiisteen ciidankooda waxay yiraahdeen nimankii Mareykanka ahaa ayaa halkaan nagu qabsanay masaasa ahaa nimankii marka hal mara waxaa lagu sii daayay sawaariikh iyo drones 3 markab waay oo maraakiibtaas inay qabsadaan rabay Iiraan marka waxay leedahay 3doodiiba nagta ka saaran ayagoo halhaleel u socda oo mid walba dhinac uu ka foqay mid dhinac ka holcayo ayay meeshii ka carareen intaas marka aan samaynay ayaa Mareykankii oo caraysan waxay soo qaadeen weerarkaas waxay ku soo qaadeen jasiirad ay leedahay Iiraan oo uu ku yaalo talis ay leeyihiin ciidanka badda ee Iiraan halkaas iyaguna weerar cirka ku soo qaadeen waxa soo kale la soo weeraray galbeedka magaalada Tahraan waana iska difaacnay dagaalkaas marka wuxuu socday 45 daqiiqo kadib Iiraan waxay soo bandhigtay video ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay soo bandhigeen videogaas oo ahaa gantaalihii iyo droniskii ay ku rideen ciidamadii Mareykanka ee rabay sida ay leeyihiin iyagu maraakiibtooda inay afduubtaan videogaas marka waxaa ku jira gantaalaha inta aan la ridin ka hor waxaa lagu dhajinayaa sawirka iyo maaragtay askari sawirkiisa iyo qoraal marka waxay leeyihiin askartaasu waxay dhimatay dagaalkii bilowgiisii markab ay Iiraan lahayd oo meel ku dhow Hindiya Mareykanku ay ku weerareen oo badda ku quusay askartii ku dhimatay midmida magacyadooda lagu qorayo waxa leeyahay waa aarsigii askariga hebel waxaana u sheegaynaa ciidamada Mareykanka qubuurahooda inay badda Hormuz noqonayso ee ku baaba'ayso وقرالو sidaas ku qoran yihiin ayaa lagu dhijinayaa saasa la sameeyay marka Iiraan marka waxay tiri dagaalkaas wuxuu socday 45 daqiiqo markaan jugta ka gelinayna soo weerareen aan iska difaacnay kadibna ayaga iskood u joojiyay anagana maraakiibteeni lama taaban sidoodii ku gudbeen waa sheekada waxay leedahay Jazeera dhanka Iiraan ay ku sharaxday waxaa noo soo aray marka dhanka riwaayada kale ee Mareykanka shawna dhankiisa wixii xalay dhacay muxuu ka yiri macal taraamkoodii macal ciidanka taliskoodii wuxoodii iyagana waa la soo aruuriyay markii weerarku dhacay markiiba waxaa soo hadlay nimanka la yiraahdo taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka CENTCOM la yiraahdaa waxay yiraahdeen iyaguna waa sheekada meel kale ka bilaabeen waxay yiraahdeen 3 markab horta 3da markab waa la isaga mid 3 markab oo kuwa dagaalka ah ma aha kuwa waaweyn oo diyaaradaha qaada iyo ma ah laakiin kuwa kale oo gaagaaban oo waxa jira oo gantaalo iyo alaab ku hubaysan Mareykanku dhowr markaba meesha u joogto 3 markaba waxay yiraahdeen ayaa waxay rabeen inay maraan Hormuz marambiyoodka Hormuz waxaa rabeen 3da markab inay maraan soo ku marayaan marka meesha maayada lagu heshiiyay ma soo mari kartida oo la siiriyo waa dagaal bilowgiisii Soomaa waa riwaayada Mareykanka ay sheekada meesha ka wadaan marka waxay leeyihiin 3 markab ayaa rabtay inay Hormuz maraan kadibna Iiraan soo weerartay iyaguna waxay sameeyeen rad ficil way iska caabiyeen
gantaalay ku rideen droniskii lagu soo weeraray way soo rideen doomihii yaryaraa ee kaneecadii alaabtii kusoo carartay wixii oo dhan waa iska celiyeen waa gubeen waa diyaaradahana way caawiyeen meeshii ay gantaaluhu ka soo dhaceen iyo droniskana satellite-kaa sawiray meelihiina waa la duqeeyey maraakiibtii marka way soo laabteen sheekadu waxaa hadlaaya nimanka la yidhaha Centcom wariyaashu marka waxay leeyihiin 45 daqiiqo uu dagaalku socday Donald Trump afkiisa maba kala qaadin waana nin war badan mar walba iska soo qori jiray dagaalkii aan bilaabay kana waa nin faan jecel ninkii waxaa leeyahay ilaa markii dambe ay wariyaashu gaareen war Trump ma hadlo maxaa ku dhacay marka waxaa leeyahay mar dambe wuxuu waraysi siiyay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka wuxuu yidhi wayna soo weerareen waa iska difaacnay laakiin ogaada xabad joojinta haddaba ogaada meesheedii joogta wax xabad joojina anaga ka baxna male dagaalna ma soconayo waa la joojiyay oday intaas uu yidhi sababtu markuu intaas u yidhi maxay tahay dadka boogtay waa dad khabaraa ku jira oo ninka hadalkiisa sababtu wuxuu ula jeedaa la akhrinaya asaga dhanaa la fiirinaya markaas waxay leedahay ninkan hadduu yidhaahdo dagaalaa dhacay xaaladdu way xun tahay hadalkiisa haddii waxaas laga fahmo shidaalka cirku galaya ninkan marka waxaa barashar iyo culays ka haystaa gudaha Mareykanka oo shidaalka qaaliyoobay adduunka oo dhan qaylina marka mar walba uu hadlaaya leeyahay maalmahan hadalkiisu wuu miisaaman yahay wuxuu ilaalinayaa culayska ka iman kara hadalkiisa shidaalka nimanka shidaalka mar walba wuxuu ku celiyaa heshiisaan gaari rabnaa annaga ilaa u fiirsada warka Trump uu qoraayo dhan maalmahan dib u fiiri wuxuu leeyahay heshiisaan geli doonaa wuu soo dhow yahay heshiiska meel fiican oo noo maraya kan waaye waxaasuu qoraa wuxuu kula dagaalamaa suuqiyo la dagaalamaa isagiyo madaxweyne suuqiyo la dagaalamaa hadduu hadalkiisa wax yar khariban uu ku daro waa kaca shidaalka wixii oo dhan waa kacayaan marka xalay 45 daqiiqa juglays ka geliyay markaas wuxuu yiri anagu difaaca ahayn waa isdifaacayni maraakiibteena iyagu Hormuz maraya la soo weeraray way isdifaaceen haddana anagu xabad joojin ma jirto waa ilaalinaynaa وفرصة أنا واحد بتوجنا ومارتي أو أريكا كوسابسن أو أنا أنشبيني مترو حبت توجنا ما أنا تشبينين مركا هوشة سؤال كاسة مرة مركا وحالي مركا مرة ماضي حبت توجتي مرة مات ماي ما مركي أقول رئيس أو نمكن جوكت إسكاليانا تاني سديدي بشي مركي أو حبت توجنت الله صحيحي بشي هوري سديدي مركي أو الله صحيحي حبت توجنت كتب محا ما مركي أقول رئيس أو سيدنا وكلا أي إسكو كراعانا مايا مالول بنمكن وحبا إسكو ردان واتي دوان مريكا كويلاهين لح مركب oo kuwa lix doonyood oo kuwa ciidanku ay leeyihiin Iran burburinay kana sameeynay Iran ay lahayd gantaal ku ridnay sheekadan marka waa sheeko iska soo noqotay laakiin xalay waxoogaa waa gariiray gobolka waqti dambana waa ahay wala iskaraacay Iran waa la duqeeyay marka waxyaabaha kale oo Iran wakaaladeeda wararka saaka ay qorayaan waxa kamid ah waxa la leeyahay dhankan dawladaha khaliijka diyaarada ka soo kacay ayaa xataa qayb ka ahaa weerarkan la soo qaaday leedahay Iran marka waxa leeyahay marka hawshaasu halkaas ay mareen waayahay marka warbixinta waxa ugu dambaysa wararka sheegaya Israa'iil iyadu maxay ka tiri Israa'iil maxay ka dhahday wixii xalay dhacay iyadu ma ku lug lahayd وسؤال بس طالبوك مكجرتا أيضا إسرائيل مركي دجالك توك سده مركي بوسوا هذلين وحيل هتين أنه وح شقة كلنا وح مش هسكت عي هذا بمجرتو قال أنه وح شقة كملي مريكن إيران ورحيسا
waxay isleedahay yaa gantaalihii lagula soo kalahin saaka oo nimanka Iiraaniyiinta jubta ka gelin marka waxay leeyihiin waxaas anaga kuma jirno waxaan wax ka ognayna ma nimanka Hormuz isku orfadhiya ayaga isku qaadqaaday annagu shaqo kuma leeyna tiri Iiraan ee baalkii Israa'iil ka hadlay Israa'iil markii la weydiiyay waxay tiri annagu wax shaqa aan ku leenahay male eedana cabsideedaasi waxay isleedahay Iiraan inta xanaaqaysan baasha kugu bilaabay marka xaalkii wixii xalay dhacay horta warbixintaas faahfaahsan oo dheer ayaa waxa ka diyaarisay telefishinka Al Jazeera waaye waxa sidoo kale yaab leh saakay Al Jazeera waxay qoraysaa mas'uul Iiraani ah ayaa wuxuu u sheegay telefishinka Al Jazeera waa mas'uul sare in aysan marnaba qariib aysan ku noqonayn wax la yaab leh aysan ku noqonayn in Israa'iil inta iska soo baxdo iyadoo xaaladdu sidan tahay ay Iiraan iska weerar gaadmaa ku soo qaado laakiin wuxuu yiri waa ogaada nimankanu niman axmaqiin waayo axmaq waxa la yiraahdaa doqomo waayo niman aqli badan ma jiro dhaay nimankaas inayna soo weeraraan waa iska suuragal laakiin maxaa ka raaci doona gantaaleena wuxuu yiri horta waxay markan kulli shaaman yihiin meelo aan ognahay dhaay oo Israa'iil gudeeda tukum daakuma ka dhigana saldhigyada Mareykanka iyo wixii ka haray oo aan hore u qarramsanay gobolkana waa sii dhameystireen oo cunayna waxaas haddaba si ogaadeen inaan la socon waxa ay falkinayaan iyo gaadmada ay rabaan waa la soconaa haddaba markaa dadku Al Jazeera ayaa warbixin kale ka qortay waxay leedahay mas'uul Iiraani oo u waramay Al Jazeera net ayaa sheegay inaysan wax la yaab leh ku noqon doonin weerar Israa'iil ay ku soo qaado oo markaa iyaguna ay si la yaab leh uga jawaabaan nimanka waa isnaqaanaa niman doqomaa waaye inay wax falkinayaanna waa la soconaa weerar gaadmaa rabaan laakiin ha ogaadeen weerar waa soo qaadi kartaa laakiin maxaa ka dhalan kara adigana dhulka lagu la simaay marka sheekada wararkaas ugu waaweynaa saacadihii la soo dhaafay gobolka bariga dhexe oo aad marka aan u soo aruurinay wixii dhacay xalay ilaa saakay ilaa hadda wixii laga qoray ayaanu inta idinku soo gudbinaynaa haddaba qadar xayeysiisa kadib waxaan gali doonaa qaybihii wararka cusubba intaanu ku jirnay barnaamijka maxaa soo kordhay si wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta jimcaha qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu marayna haddaba qaybtan maxaa soo kordhay marka inta aan barnaamijka ku jirnay Shiinaha ayaa war soo saaray Shiinaha wuxuu leeyahay waxaan helnay macluumaad ku saabsan xalay wixii dhacay raadka ay ku yeesheen maraakiibtii ku xanibnayd Hormuz waxaanu ka walaacsannahay maraakiibta ku dhibaataysan arinta Hormuz maraakiibta 1500 ilaa 1600 oo markab ayaa eeriyada joogta nimankana sawaariiq iyo alaaba isla dhacaan markasta way isku dhuftaan waxa firir soo gaara maraakiibta iyo waxa dul mara shaqaalaha saaran kumanaan ayaa saaran marka waxay leeyihiin Shiinuhu wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa goordhow war soo saartay waxay leeyihiin waxaanu ka walaacsannahay xaaladda ay ku sugan yihiin maraakiibta ku go'doonsan halkaas marka waa in xaaladan la dejiyaa Mareykankan meesha dhooban wadada ha furo ha laga heshiiyo waxaan hal la sameeyay leeyihiin nimankan Chineska saaki warkaas ay soo saareen dhanka kale wararka kale ee cusub ee soo kordhayna waxa kamid ah Israa'iil ayaa heegan culus gelisay ciidankeeda dadkuna waxay ugu baaqday inay godadka dhulka hoostiisa galaan kadib markii kooxaha sirdoonka Israa'iil ay heleen xogo ku saabsan Hezbollah inay abaabulayaan weeraro isugu jira drones iyo gantaalo mar kaliya ah inay la dhacaan Israa'iil iyagoo ugu argudaya taliyahoodii ciidanka Ridwan oo weerar gaadma Beirut koonfurteedii dhawaan ay Israa'iil ku dishay marka Israa'iil cabsidaas ay qabaan
heegankaasay ku jiraan aargoosigaasaan ka baqayna ay leeyihin marka wararkaas ayaa soo kordhay intaanu barnaamijka ku jirnay mar kale waxaan idin leenahay asxaabay jimca mubaarak jimca wanaagsan barnaamijkuna wuxuu ah kii ugu horreeya haddii alla idmo barnaamijyo kale ayaanu idiin soo gudbin doonaa oo aanu ku soo aruurinayno akhbaaraadka iyo caalamka gaar ahaan arrimaha bariga dhexe wixii ka soo kordhay laagaray oo sheergaray barnaamijka intaanu markaa ka gaarayno barnaamijyada kalena waxaan idinkaga tegaynaa asxaabay sidaas iyo